هاي أصحابته waxay inoo socdo daraamadina lagu magacaabay as you stood by qaybtana waa qaybtii labaad waxayna inoo mareysay iyadoo insu badbaadinayso Heisu isdil rabto kadibna kula talinayso inta iyada dhamayd inay ninkeeda kharijiso balse Heisu ayaa dhahaysa hadaba ninkan aniga ma dili karo insu ayaa markaas u sheegaysa in labadooda wada dilayaan isla markaas ay wax maqlayaan albaabka oo la furayo isla markaas ay Heisu waxay ku qarinaysaa armaajada dharka kadibna waxay iska dhigaysaa qof hurdayso markaas ayaa ninkeeda wuxuu bilaabay isla markii inuu garaaco inta garaacida koodana waxay u baaqaysaa inayna soo bixin insuna armaajadan xasuus ay gelinaysaa yaraanteeda markay abeed ugu dhuuma jirtay markuu ka tago ay armaajada ka soo baxaysaa ayadoo markaa u sheegaysa inay waajib tahay in labadooda dilaan ninkaani maalmo kadib waxaa arkaynaa insu uu ka qayb galaysa dugtii naagta isdishay waxayna markaan ka walwalsan tahay qofka xiga inay saaxiibteed naqan karto isla habeenkaas Heisu ayaa isku dayaysa inay isdisho halka ninkeeda intuu ogaado isla markii badbaadinayo maadaama dhaawacyada jirkeeda uu geystay uu ku yaalo haddii sidaan ku dhimatana baxar uu ku geli karo isla markii sunaxda ayuu ku qabsanaya inay noloshiisa rabto inay baabi'iso balse isla markii waxay ka codsanaysaa inuu kamarada jibiyo jugtiisana ay u adkaysan karto laakiin u adkaysan karin sida daanyar meel ugu xiran oo naqato isla markaasna mar labaad ay isku dayaysaa inay midi isgeliso hortiisa balse asaga ayaa qabanayo marka wada kale u furan ma jirto isla markii wuxuu go'aansanaya inuu kamarada jibiyo oo soo baxay asagoo kamarada jibinayo habeenkaas si degan ayay Heisu u jiifanaysaa waxayna message u soo diraysaa Insu iyadoo u sheegaysa in qorshaha ku dhaqaaqaan diyaarna ay u taaqto hadarkaani Insuna markaa waxay u laabanaysaa Master Jin iyadoo ka wareysanaysa qorshaha uu soo bandhigay waxayna ku leedahay hadaba haddii doonaysa naagta inay isbadbaadiso ninka bahalkana iska badbaadiso qorshaha dilka sida ku fulin kartaa halka Master Jin uu jawaabayay markii dilaysa inaan la qabanin kadib markii dishana meertka ay qariso qorshaha Master Jin Insu wuxuu u noqonayaa dhiirigelin isla markaas waxay soo xasuusanaysaa ninka shaqaalaha kamid ah ee oo kay Heisu ninkeeda isla markaas ay Master Jin waxay weydiisay ninkaas qofka uu yahay wuxuu sheegay inuu nin Sogoloti uu sharcilaan wadanka ku soo galay China ka yimi waxaan halka Insu ugu soo baxaysa qorshaheeda uu fiican in ninka uu adeegsan karto isla markaasna sawir ay ka qaadaysaa waxayna u diraysaa Heisu markaas ay Insu waxay u tagaysaa ninka kadibna waxay u sheegaysaa si sharciyeena wadanka uu saari karto ayadoo lacag siinayso asigoo isticmaalaya baasaboor qof dhintay Heisu ninka muuqaalkiisa markay aragto isku naxaysa iyadoo u maraysa ninkeeda Insu ayaan u sheegaysaa inuu ninkeeda yahay oo nin kale u yahay dhanka kale waxaa arkaynaa Jinbiyo oo aad u careysan kadib markuu ogaado Mrs. Kim inayna doonayn inay dhil la gar maadaama asiga xaskiisa ay xafladda ka qaseen ayna markaan codsatay in qofka loogu bedelo markaas ayuu bilaabay Mrs. Kim inuu baaritaan ku sameeyo wuxuuna halkan ka ogaanayay iyadii Insu inay xiriir leeyihiin isla markaas ayuu jaagaraynaya fiidiyoga ugu dambeeyay CCTV-ga u duubtay wuxuuna halkaa ku arkay Heisu markuu garaacay inay Insu guriga joogtay kadibna labadooda ayuu maqaaxi ku ballaminayaa isla markaas ayuu Heisu cabitaan ku daadinaya si uu Insu kaligeed ula hadlo kadibna wuxuu bilaabay inuu inkiro dhibaatada uu geysto gabadhaani asagoo Insu u sheegay in saaxiibteeda maskaxda ka jiran tahay cudurka haweeneyda qabto camal ay qabto sida darteed si uu la socdo kaamira ugu xiray meesha xaaladeedana ka ogaado wuxuuna sidoo kale la socodsiinayay inuu og yahay habeenkaas inay armaajada ku jirtay markaas ay Insu waxay ku leedahay hadaba miyaa ku caawinaysaa inaad disho mise qof dhibaataysan ayaa dil lagu caawiyaa ugu dambeyn hadafkiisa ayuu cadeynaya asagoo uu handadayo inuu saaxiibteeda dhibaataynayo ayuu wuxuu ka codsanayaa inay Mrs. Kim gacanta u soo geliso maadaama ay iyada xiriir leeyihiin isla markiina waxay bilaabaysaa inay ka horgasho waxayna la kulmaysaa Mrs. Kim ayadoo markaan ka dhadhacsiinaysa in qandaraaska siiso Jinbiyo ugu dambeyn way ku guuleysanaysaa Insu markaan halkan inay soo galay iyadoo baasaboorkii wax dham u keenayso qorshahoodina halkan ka sii wadayaan islaamiinkaas waxay tagaysaa jimkii kadibna macalinka ay tijaabinaysaa tababarkii qaadanaysa muddooyinkani imtixaankan way ku baasaysaa kadibna wuxuu ka codsanaya inay dib ugu soo laabaneen Insu markaan waxaa arkaynaa inay iska dhigaysa xaas baari ah ayadoo ninkan dharka u feereynaysa kadibna si fiican u dhaqmayso waxayna ka codsanaysaa iyadii saaxiibteeda inay hooyadeed soo booqdaan wuuna ka aqbalaya maadaama xaaladeeda dham uu la socdo kadibna labadooda is soo raacayaan waxayna bilaabayaan inay god qodaan godkana waa godkii ninka ku duugi lahaayeen isla habeenkaas Jinbiyo waxa u soo dhacay message kaasoo sheegaya inuu tigid u jartay China isla markaas aad ayuu u caroonaya guriga inuu soo cararaya ugu dambeyn guriga ayuu u imaanaya Insu iyo Heisu ayagoo markaan practice qaadanayaan ninkan sidii u dil lahaayeen kadibna weerarkiisa ayuu bilaabay labadoona ayuu si xun u garaacaya maadaama uu ka xoog weyn yahay ugu dambeyn Heisu ayaa madaxa ku dhufanayso ayadoo markaan soo xasuusanaysa dhibaatooyinka uu geysan jiray ay si xun madaxa u garaacaysa ilaa uu ka geeriyooday inay ku wadaysa markii arkaan ninkan inuu geeriyoodo isku naxaya laakiin qorshahooda ay halka ka sii wadanayaan isla markaas ay albaabka la soo qaraacaya markay fiiriyaan waa naagta diriskooda ahayd waxayna bilaabayaan markaan inay tirtiraan dhiig iyo cadeynta meesha ka muuqato midkan waxay gelinayaan boorsad kadibna waxay u dhiibayaan ninkii Sogolootiga ahaa maalintii xigtay Heisu waxa uu imaanaysa dumaashideeda aad ayuuna ugu naxaysaa kadibna masolsha ay dhiig ku arkaysaa laakiin dhiigga waxay u malaynaysaa dhiigga Heisu maadaama ay la socto walaalkeed inuu si xun u garaaco gabadhaani waxa caadi ayaan la tahay gabadhaani Heisuna markaan qorshaha iyo meesha ka sii wadaysaa akoonka loogu talagalay lacagta ay ka bixinaysaa iyadoo isticmaalaysa akoonka ninkeeda xariifkii Sogolootigana elboorka ayuu aadayaa asigoo qorshana halkaas inuu kasii baxo qorshuhuna waa Jinbiyo in laga dhigo inuu China aaday Insuna Heisu ayay ka caawinaysaa inay dhammaan cadeymaha tirtirto midkii isla soo duugayaan balse intay wadada soo socdeen ayaa sargaal booliis qabanaya maadaama bagaarigooda u dhiig ku arkay Insu ayaan u sheegaysa in gaariga shil ku soo galeen ayna ku soo dhufteen sagaaro wadada maraysay taasoo sax ah balse sargaalka ay wuxuu ka codsanayaa gaariga gadaal inay furaan gadaalna waxa u saarnaa badiyalada iyo waxyaabihii god ku soo qodeen kuwaas oo baxar gelin kara waqti xadirkan Insu waxay qorsheynaysaa in gaariga la baxsto booliiska ay ka cararto balse si wanaag sargaalka ayaa ka mashquulayo sidaas ayna ugu soo baxsanayaan marka cabar ay ka soo wareegtay jawigooduna uu degan yahay
Jambio Karbeyga uu ka shaqeynaya ayaa waxay soo sheegayaan ninkan in la yahay isla markaas walaashiisa oo baaritaan sameysay ayaa waxay soo helaysaa CCTV-ga ee karoonka asagoo la kulmaya haweeney iyo cunug waxayna u qaadanaysaa ninkan inuu naagtiisa khiyaanayay naag kale iyo cunug kalena uu leeyahay balse isla markaas ay waxay ogaanaysaa in kamaniga ninkan shaqada ka soo ceyrin rabay isla markaas ay bilaabaysaa dambiyada walaalkeed inay duuduugto maadaama ida lafteeda ay qorshaheeda u yahay in kamaniga xil sare ay ka qabato haysu marka la weydiiyana waxay leedahay ninkayga waxba kama ogi meesha uu jiro iyadii saaxiibteedana waxay bilaabayaan waqti fiican in la isla qaataan maadaama ay ka soo baxay noloshii cadaabta ahayd insu markaan waxaan arkaynaa iyadoo aabaheed la kulmayso una sheegayso in aabaheed nolosha hooyadeed ugu baabi'iyey ciqaabna u gelshay adduunkana asiga ay u nacab tahay haddii uu dhintana inay ooyin doonin oo wax muruga ay dareemi doonin isla markaas way soo baxaysaa hooyadeed ayna soo wadaysaa si ay u soo dukaamaystaan waxayna arkaysaa markii ugu horreysay hooyadeed oo si fiican u qoslayso dhanka kale waxaan arkaynaa hiisu inay shaqo bilowday kana shaqo bilowday kamariga Mr. Jane ayadoo markaan buuxinaysay booskii ninkii sogolootiga ahaa dhanka kale waxaan arkaynaa insu uu booskeeda wacayo si uu ugu celiyo inay ku cadayso ninkii xaskiisa gaariga dardarsiiyay ee wuxuushka ahaa asagoo markaan ka codsanayo inuu sheekada u bedesho inay gabadhaas depression qabtay sidaa darteedna isku dishay balse insu arrinkan way ka soo horjeesanaysaa wayna ka soo tegaysaa si ay runta u soo cadayso balse managerka ayaa ka daba imaha isigoo ku dhahayo sheekadan sideeda waa inaan kor ugu baxdaa oo ninkan ka leexataa maadaama ninkan macmiilkeena uu fiican uu yahay qarash badan mar walba u bixiyo si wax nooga iibsado sidaa isku indhatirta marka dhaawacyada ku yaala aragtana sida camal inaa isku indhatirta hadda ayaan ka doonaya ay ku leeyahay balse way ka diidaysaa isla markaas ayaa iyadoo suulida ku jirta ayaa ninka uu soo galayo meesha kadibna wuxuu bilaabayaa insu inuu handado una weerar ku soo qaado si uu u garaaco balse Mr. Jane ayaa ka soo gaarayo una sheegay inuu ka shalaayi doono wuxuu sameeyay gabadhaani kadibna kamaniga ay ku soo laabanayaan labadii gabdhood iyo Mr. Jane way wada cuntanayaan markaani waxayna halkaan ka ogaanayaan hiisu wili shock inuu hayo oo qof walba horteeda ka imaaday in ninkeeda u malayso markaas kadib Mr. Jane ayaa wuxuu arkayaa gabadhan dhaawacyada jirkeeda ku yaalo aad ayuu ugu yaabayaa sida loo dhibaateeyay markaan hiisu uu gurigeeda iska joogto ayaa waxay arkaysaa ninkii sogolootiga ee gurigeeda joogo ayadoo la yaab sababta uu soo noqday ayuu u sheegayaa inuu sirtooda dhamhaayo kadibna wuxuu ku rakaateynaya inay 3 bilyan oo lacag ay siiso haddii kale sirtooda uu ka shafi doono kadibna uu ka soo tagayaa balse nasiib darro waxaa arkaya waardiyaha guriga si waardiyaha isaga aamusiyana halkaas ay ku dilayaa asigana hayiisuna markay aragto ninkan inuu ninkii waardiyaha dilay aad bay u argagaxaysaa isla markiina insu ay u sheegaysaa waxayna halkaan ka ogaanayaan ninkan khatartiisa inuu wato haysi dumashadeeda markaan shaki ayaa soo galay isla markiina waxay bilaabaysaa baaritaan waxayna helaysaa fiideo CCTV ah kaasoo ka arkaysa ninkii sogolootiga oo borso wato ayadoo markaan doonaysa meesha ku dambeeyay inay ogaato dhanka kale Mr. Jane wuxuu ogaanayaa ninkii sogolootiga inuu gabdhaha khiyaanayo oo rikaato ku wado wuxuuna halkaan ka fahmayaa gabdhahan dhibaatada ku jiraan inuu asiga ka dambeeyay maadaama uu kula taliyay ninka inay dilaan sida daradeed gabdhihii masaakiinta inay dilay ku noqdeen wana ka xumaanaya inay gabdhahan la murugoodaan arrinkaani isla markaasna wuxuu shaqaalaysiinayaa dimibaare kaasoo u baaray ninkii sogolootiga meesha ku dambeeyay iyo wuxuu sameynayo markaan waxaan arkaynaa ninkii sogolootiga oo tagay meeshii beedkii lagu duugay isla markiina markuu fiiriyo uu ku weynayaa gabdhihiina ayaa hore ugu baxsheen maadaama ay ogaayeen ninkan inuu khatar ka imaan karto kadibna intuu godka galo ayuu fiidiyowga iska duubayaa wuxuuna u dirayaa insu asigoo doonaya markaa inuu ku cabsiiyo markaas ay u sheegaysaa inuu wax qalad sameyn oo lacagtiisa uu soo doonto subaxdii xigtay haysu dumashadeed oo baritaanka waday ayaa waxay arkaysaa ninkii sogolootiga iyo insu oo kulmayaan ninkana waxay u haysataa inuu walaalkeed yahay waxayna u qaadanaysaa markaan asigii insu inuu xiriir kale ka dhaxeeyo walaalkeedna markaan uu shabeelnaagood yahay isla markaas ayaa askari saaxiibkeeda oo iyada la shaqeeya soo wacayo wuxuuna tusayaa fiidiyowga walaalkeed uu dilaya ninkii waardiyaha ahaa isla markaasna way ka naxaysaa waxayna eedda dusha ka saaraysaa haysu isla markaas ayaa hooyada soo wacaysa waxayna u sheegaysaa inay walaalkeed jeenaha ka soo laabta isigoo doonaya lacag markay u timaad ayaa waxay fiirinaysaa masajada uu soo diray waxayna halkaa ka ogaanaysaa inuu walaalkeed ahayn isla markaasna waxay bilaabaysaa maalintuu baxaya inay kaamirada baarto waxayna arkaysaa wiishka markuu soo koraayo doqortiisa waxay ku arkaysaa shaabada ku taalo markaas ayna xaqiiqsanaysaa inuu walaalkeed ahayn ninkaani boorsada uu jiidaya markay fiirsanay halkaa ka ogaanaysaa walaalkeed inuu boorsada ku jiray kadibna waxay bilaabaysaa inay iska oyso kadibna waxay fiirinaysaa sawirada haysu waxayna arkaysaa inuu gabadhan si xun u qaracay walaalkeeda sidaas ayna ku ogaanaysaa sida darteed in loo dilo walaalkeeda dhanka kale Mr. Jane ayaa wuxuu ku soo badbaadiyaa insu ninkii sogolootiga ahaa wuxuuna markaan u sheegayaa qorshahooda dhammaan inuu og yahay iyo sida wax yeeleen wuxuuna ku adkaysanayaa inuu caawiyo maadaama ninkan sogolootiga nin khatar uu yahay taariikhdiisa horena oo ka warhayo nin gangster uu ahaa jiray oo dagaalo badan ka soo qayb qaatay ilaa uu maalmaha kamid gurigiisa imaado iyagoo familkiisa dhammaan baabi'iyay gangsterada ka soo jeedeen ay laayeen sidaa daradeed nin ay wajahi karaan oo nin khatar uu yahay dhanka kale haysu dumashadeeda waxay qaranaysaa dhammaan caddeymihii ay heshay maadaama ay ka cabsanayso inay saameyn ku yeelato booska sare ay kamaniga ka rajeynaysa inay ka hesho balse waxaa arkaynaa inay gacanta kusoo dhigtay ninkii sogolootiga ahaa isla markaasna waxay bilaabaysaa haysu inay rikaato ku geliso iyadoo sawirro usoo dirayso
kuna sheegaysa ninkii sugulootiga inay naag xaaskiisa tahay meedkiisana ay heshay waxayna u sheegaysaa insu inay cadeymo badan ku hayso wadada kaliya haysu u furana ay tahay inay isdisho sidaas kaliya saaxiibteeda ku cafi karto haysuna marka arrinkaas way ka ogolaanaysaa si saaxiibteeda u badbaadsato gabadhan booliisada waxay qorsheynaysaa gabadhan inay sumayso ayadoo ka qorayso warqad cadeynaysa inay isdishay kadibna sheekada ka dhigto iyada iyo insu inay ninkeeda isla dileen walaalkeedna sida uu ku geeriyooday waqti xaadirkaas baarihii Mr. Jean wuxuu soo ogaanayaa in waardiyaha la dilay uu dilay haysu ninkeeda isla markaas waxaan arkaynaa insu uu soo gaarayso goobtii isla markaasna badbaadinaysa saaxiibteeda kala badbaadinaysa gabadhii booliisada ahayd kadibna intay garaacday ay runta u sheegaysaa balse gabadha booliisada waxay u leedahay inta neefta ugu jirto waa in la dagaali doonaa maxkamadda ayadan ku cadeyn doonaa wax walba samayseen insuna markaa waxay bilaabaysaa kaarkeeda inay la soo baxdo dadkii caanka ah ee dukaanka ku baratay ay caawi jirtana dhammaan ay isticmaasho ayadoo dhammaan dembiyada ee gabadhan booliisada ay gashay dib banaanka soo dhigayso si shaqada loogu soo ceyriyo waqti xaadirkaas Jimbi hooyadiis ayaa waxay arkaysaa ninkii sugulootiga ee maqaasiinkeeda ku xiran isla markaasna waxay u ogaanaysaa wiilkeeda inuu yahay markay u timaad ay u sheegay inuu wiilkeeda ahayn wiilkeedana uu geeriyooday sheekada dhab uu cadeynaya isla markaas iyadoo caraysan waxay bilaabaysaa inay garaacdo ilaa uu ka dhintay inay garaacaysaa abarka bacdi gabadhii booliisadeed markii guriga soo gaarto way isku naxaysaa wax meesha ka dhacay markay aragto balse weli waxay go'aansanaysaa hooyada dembiga gashay inay qariso isla markaas miidka ay soo qaadayaan gaariga gadaashiisa inay soo gelinayaan si ay meel dheer ugu soo duugaan wayna soo baxayaan wadada ay soo qabanayaan balse intay dhex soo socdeen ayaa si lama filaana gaariga insu gaarigooda ku dhacayo isla markaasna gaariga gadaashiisa ayaa furmayso waxaan la arkayaa ninkii meedkiisa ku jiray TV-da ayaa laga soo deenayaa fiidiyowga oo shacabku dham ayaa ogaanaya arrinkaani dhammaan shacab weynihii waddankana labadan gabdhood ay la jirayaan sheekadan waxay noqonaysaa sheeko viral ah qof walbana uu ka dhiidhiyo dhibaatada loo geysta gabdhahani waxaana tirkoob ahaan lagu sheegaa waddanka Korea ku dhawaad 10% in xaasaska dhibaato badan loo geysto nimankooda cabsana ay si xum u garaacaan halka dambiyadaas dhan faamiladooda ay duuduugaan marka waxaan arkaynaa insu hooyadeed inay aad ugu xumaatay gabadheeda dhibaatada ay dhaxda ka gashay eedan iyada iyo dusha iska saarayso maadaama iyada dhibaato ku dhacday darteed gabadheeda ay maskaxdeeda wax u gaareen cuqdadna ila nooleed dhanka kale Mr. Jean wuxuu u qabanayaa looyarada ugu lacagta badan uuna qatarsan gabdhahani si maxkamadda looga badbaadiyo balse gabdhahan runta iyaga maxkamadda ka cadeynaya haysun waxay ka sheekeynaysaa nolosha ciqaabta ay ku nooleed ayadoo dhahayso bal ka waran hadii lagu garaaco dadkan ay u arkaan garaacidaas lagu garaacay inay iska caadi tahay meel ay u dacwo karteen ay jireen garaacidaasna ugu dambeyn ay u dhiman karto cid caawisana ay jireen nimanka qaarna xaasaskooda inay garaacaan dembi uma arkaan marka wadada iyo furneed kaliya waxay ahayd inay dhinto amba asiga u dhinto insuna waxay ka sheekeynaysaa hooyada dhibaatada ay soo martay iyo yaraanteeda waxaad inay u dulqaado weysay marka saaxiibteeda oo noloshaas ku jirto inay arki weysay sida daradeed ay u caawisay marka maxkamadda sanado yar ay ku xukumaysaa labadooda oo dembi dhaaf ayaa loo sameynayaa insi xaxusiga inta ku jirtay ayaa hooyada geeriyoonayso aad ayna ugu murugoonaysaa sina way ugu farxaysaa maadaama ciqaabta ay ku nooleed ay ka fakatay marka waqti ayaa ka soo wareegay Mr. Jean insu ay soo wadayaa ugu dambeynna haysu ay soo dhaweeyaan maadaama xabsiga laga soo deynayay labadoodana Mr. Jean hab ay siinayaan asiga la'aantiisna qorshahan uma fuli lahayn baharkan kama baxayn kadibna saddexdooda is soo raacayaan nolol cusub ayaan halkaa ka bilaabayaan waxaan halkan ka ogaanaynaa insu iyo Mr. Jean inay labadooda xiriir jecel halkaa uu ka bilowday in aad isku soo dhawaanayaan daramadina halkan ay noogu eg tahay fadlan halka hadana soo gaarto muuqaalka like ino saar hadana nagu cusubtana subscribe oo nagu soo biir gambaleelkana furo si muuqaaladana xig ay ku dhaafi muuqaalkana share gareey oo asxaabtaada u share gareey oo daramooyinka aad u xiiseeyo aad ayaad u mahadsantihiin nabadeey